kumaan qof ayaa isugu soo baxay aaska madaxii siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya kaasi oo Arbacadii lagu dilay weerar ka dhacay Tehran. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Ali ayaa u duceeyay hogaamiyihii Xamaas oo meydkiisa lagu aasi doono dalka Qatar. Warbaahinta Mareykanka oo soo xiganaysa saraakiil Iiraaniyiin ah ayaa sheegtay inay hogaamiyaha ugu sarreeya uu amray weerar toos ah oo ka dhan ah Israa'iil oo sheegay inay mas'uul ka ahayd weerarkii lagu qaaday dhulka Iiraan. Israa'iil si toos ah ugama hadlin dilkan. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu dalkiisu dhirbaaxo xun u geystay cadawgiisa maalmihii la soo dhaafay oo ay ku jirto dilkii taliye sare Xisbullah oo lagu dilay Lubnaan saacada ka hor weerarkii Tehran. Waxa uu uga digay Israa'iiliyiinta maalmo adag oo soo socda iyada oo laga cabsi qabo isku dhac ballaaran oo ka dhaca bariga dhexe. Tan iyo weerarkii Beirut waxaan maqalay hanjabaado ka imanaya dhinac walba ayuu ku sheegay khudbad uu ka jeediyay telefishanka. Waan u diyaar garoobaynaa xaalad kasta waxaanan u istaagi doonaa midnimo iyo go'aan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka digay khatar sii kordhaysa ee colaadeed. Garabka hubeysan ee Xamaas ayaa sheegay in geerida Haniya oo si weyn loogu arki jiray hogaamiyaha guud ee kooxda ay dagaalka weji cusub u yeeli doonto ayna yeelan doonto saameyn weyn. Absalaan Galbeedi, wararka Bulsha TV. usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmed waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121